بسم الله الرحمن الرحيم داوديال كسو دوادا ورئيسي gaar ah oo aanu la yeelanayno madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxaan filayaa inay tahay markii labaad oo aan wareysigan isugu imaanayna aniga isaga Universalna dabcan marar badan ayuu madaxweynuhu ka qayb galay barnaamijyo iyo doodo uu dadka kula hadlayay hase yeeshee afartii sano ee xilka madaxweynuhu uu hayay welina uu hayo waa markii labaad oo shakhsiyan aan iska hor imaano aniga isaga oo aan wareysi noocaan isugu imaano mudane madaxweyne marka hore soo dhawow kusoo dhawow Universal oo kamid ah warbaahinta dalka ee bulshadaada iyo shacabkaada madaxweynaha u tahay kala hadasho aad iyo aad u mahadsantahay waa Universalna aad u mahadsantahay waayahay madaxweynuhu aad buu mahadsan yahay insha Allah madaxweynaha dhowr su'aal ayaan weydiin doonaa oo aan isleenahay marxaladda dalka ay ka turjumayaan iyo su'aalo aan u aran in shacabku ay ku jirto qalbiyadooda oo ay jeclaan lahaayeen in madaxweynuhu ay weydiiyaan sidaasi ayaan wakiil uga nahay in qof kastoo Soomaali ah oo aan fursad u helin madaxweynuhu su'aal weydiiyo inta uu ka helayna inagu aan sii matalno oo aan u weydiino su'aalaha oo isaga jeclaan lahaa mudane madaxweyne su'aashida koowaad waxay noqonaysaa bilihii ramadaanka ee sanadii hore aan soo dhaafnay markaad eegto weeraradii iyo falalkii dhacay dhinaca amniga ka soo horjeeday iyo bisha naga sii dhamaanaysay Ramadaan waxaad moodaa in farqi weyn uu jiro oo ay hoos u dhaceen weeraradii dhici jiray iyo dhibaatadii dadku ay malayn jireen maxaad ku tilmaami kartaa sababta arintaasi hoos u dhigtay bismillaah alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah sidaad u sheegtay dadka Soomaaliyeed dhammaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan waxaan ugu hambaliyeynayaa munaasabadda ciidda oo runtii aan soonkeenii iyo muxuu ahay rabbi tuugeenii au hadda gabagaba maraayo alxamdulillaah waa ilaahay mahadiisa nabad saban ugu soo dhammaaday su-aasha haddaan usoo noqdo يعني أفرت السنة أنا تلذ عن جوني يمدوين كسيه الريبة ضدك Soomaaliyeed waxay dadaal badan ugu jireen mar walba sida cadawgan nabadiidka meel u saari lahaayeen afartii sano ugu dambeysana ciidamada qalabka sida guud ahaan iyo shacabka Soomaaliyeed waa u guntadeen in ay yareeyaan maalin walbana runtii nimankan cadawga nabadiidka awoodooda way soo yaraanaysay waxayna sababta u soo yaraanaysana mabdii inay ka tanaasuleen ma aha nacaybkii iyo cadaawadii ay qabeen inay ka tanaasuleen ma aha dadka Soomaaliyeed oo maalinba maalinta ka dambaysa soo baranayo soona fahmayo waxa ay u taagiin ayaa iyo oo fahamkaas oo keenay wada shaqayn in ay dadka iyo dawladda dhaxmarto ayaa keenay dadka Soomaaliyeed aad iyo aad maalin walba fahamkoodii iyo wada shaqaynta dawladdu ay leeyihiin dabcan waxaan qirayaa in ay shabaab muddada ay joogeen ay nagu dheeraatay oo ay ahayd waqtigan ka hor inaan muxuu ahay ka farxalano laakiin haddana amuur waqtigeedii qabsoontaa horumarka iyo amuuraha la gaaray waxaa sabab u ah taageerada dadka Soomaaliyeed ay dawladda siiyeen wada shaqaynta dadka Soomaaliyeed ay la yeesheen ciidamada amniga iyo hay'adaha amniga dalka iyo dhiiranaanta ay ku dhiiradeen ay ku qanceen dadka in shabaab la iska dhici karo marka inta iyo dabcan waxbarashana waa ku jirto ciidamadeena iyo hay'adaheena amniga iyo waxay soo fahmayeen inta maalin farsamooyinka ay adeegsadaan marka waa run maalmihii iyo bilihii la soo dhaafo dhan inta isku day oo shabaab ay sameeyeen oo la fashiliyay waxaan dhihi karaa boqolkiiba 90 in ka badan isku dayadii ay dadka inay ku dhibaateeyaan ay rabeen waa la fashiliyay inta hartana ilaahay idinkiis way soo afjarmi doontaa mar dhow waayahay mudane madaxweyne 4 sano wax yar dhiman ayaad madaxweyne waddanka ka tahay intii aad xilkaasi haysay oo dhanna marxalada isbedelaya ayaa waddanka ka dhacay maxaa laga xusi karaa arrimahaasi oo dhan oo aad isleedahay adigu mar kale shacabka Soomaaliyeed inkastoo shacab aysan waxba dooranaynin kalsooni inay ku doortaan waad ku weydiisan kartaa waxa waaye dabcan dalkani meel aad iyo aad u fog gaaray dalkani intii dawlad shaqeynaysa ay ka jirtay iyo intii dawlad la'aan ama dawlad aan shaqeynayn ay ka jirtay waa iska daba dhow yihiin 30 sano iyo 26 sano ayaan kala maraynaa marka dabcan wixii naga halaabay oo muddooyinka dheer oo dhan soo halaabayay in dib loo soo dhiso laba qaacido oo sax ah waxay tahay koow horta wax in la dumiyaa aad u sahlan tahay wax in la dhisaan way dhib badan tahay koow hawsha tiilay oo in la qabto ay ahayd dawladnimada
oo ay ugu weyn tahay dowlad dhisidda nidaamka dawliga si loo dhiso waqti dheer ay qaadatay laakiin anigu waxaan imiday xafiiska aniga oo ra'yi iyo ajande dowlad dhisidda iyo dalka dib u soo kabashadiisa ra'yi cad oo ii qeexan yahay oo iigu qeexan yahay waayo aragnimadii Soomaaliya intii aan joogay iyo baaritaanadii rasmiga cilmi baaristii aan Soomaaliya muddo dheer ku soo sameynayay iyo waayo aragnimadeedii aan la tacaamulay dadka Soomaaliyeed ama xaq samafal ama xaq arrimo bulsho ama xaq bulsho rayid dhinac walba waxay ii sababtay in aan la imaado ajanda cad oo dalka dib u soo gashay waana xasuusataa ajandihii aan la nimiday oo ahaay 6 tiir ee dalka 6daas tiir qodobo waaweyn oo waxay ahaayeen wixii jiray oo dhan ma ahayn laakiin kuwa ugu muhiimsanaayeen markaa u aragnay inay muhiim ahaayeen ayay ahayd 6daas tiir waxay noo noqdeen wixii bartilmaameedkii aan hiigsanaynay iyo wixii aan ku soconnay sanadkii 2013 oo sanadkii ugu horeysay ee taladeed waxaa xasuustaa inta shir ee aan qabanay shirar dhaqaalaha dib u kabashadiisa looga hadlayay amniga looga hadlayay dastuurka looga hadlayay siyaasadda looga hadlayay yacni arrimaha maxaan ku irahdaa diinta iyo horumarinteeda looga hadlayay arrimaha bulshada tacliinta iyo caafimaadka iyo looga hadlayay intaasoo dhan waxaan fursad u furnay dadka Soomaaliyeed in ay taladooda ku biiriyaan dowladnimada talooyinkaas waxaa ka yimid barnaamijka kala duwanaa ee xukuumadda ay ku shaqeynaysay talooyinkaas iyo shirarkaa waxaa ka dhashay hiigsiga 2016 oo haatan gabagabada marayo marka waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan u sheego wixii aan ballan qaadnay wax badan oo kamida way noo qabsoomeen wada tashiga kamida dalkani maadaama uu yahay dal dagaal sokay muddo dheer ku soo jiray cid inta guuleysata dalka xoog ku qabsatana aanay jirin oo ay dhici weyday in dadka la isku soo celiyo oo la isku soo celiyo madalooyin in loo abuuro dadku ay ku tashadaan dowladuna taladaas ay ku qaaday ku dhaqan geliso horta waxay ahayd mid ugu fiican markii ugu horeysay 26 sano ee la soo dhaafay ku dhawaad waa markii ugu horeysay oo dowladii 16 sano oo hadda waqtigan u dambeysay dowlad dalka ay ka jirta carta laga soo bilaabo waa markii ugu horeysay oo dowladii ayadoo isla socotay waqtigeedii dhameysatay oo baarlamaankii aanu kala tegin xukuumaddii aanay kala tegin madaxtooyadii iyo wixii aan la isqabqabsanin farqaha la iska raaracsan waa markii ugu horeysay oo dalku dowladnimadu magaalada Muqdisho inta ka baxday ay meelo aad uga fogfog magaalada Muqdisho ay tagtay oo taladii dowladnimada ay taalo annagu marka waxaan dhihi karnaa dadka Soomaaliyeed wax badan oo dowladdan waa u qabatay xilliga hadda jiray ee 4 sano ah طبعا waxa in la qabta la rabaa aad u badnaa lama wada qaban karin laakiin wixii duruufuhu ay saamixeen awoodda ay saamixday waa la qabtay oo ay ugu horeyso waxa ugu daran mar walba dadka Soomaaliyeed u sheegay in xusuusi ay rabto waxay tahay waxa kale oo dhan kaalmo caalami aan ku qabsan karnaa kaalmaan u heli karnaa laakiin arrimaha siyaasadda kaalmo uma heli karno annaga Soomaalida waa inaan sameeyno waxa ugu weyn oo faan waxay tahay arrimaha siyaasadda horumarka aan ka gaarnay arrimaha amniga horumarka aan ka gaarnay arrimaha dib u habeynta maaliyadda horumarka aan ka gaarnay arrimaha maxaan ku iraahday garsoorka tallaabooyinka la taaban karo ka qaadnay dhammaan 6 tiir arrimaha yani ordida iyo waqti gelinta arrimaha ku saabsan midnimada dalka cilaaqaadkeena caalamiga 6 tiir dhammaan wax baan ka qabanay 6 tiir laakiin kuma ama koobaynin baahida Soomaaliya oo dhan jirta ee muhiimadda ah marka waxyaabahaas oo dhan oo noo qabsoomay ayaan waxaan aaminsanahay haddii fursad kale aan u sii helno mar kale in aan meel kale oo weyn oo Soomaaliya aan dib u noqon karin aan gaarsi karno dabcan waxaad ka hadashay dhinaca isqabsiga waxaa tiri inagoo isla soconno ayaan halkan soo gaarnay sida loo yahana laba ra'iisul wasaare ayaa inta madaxweyne ahayd shaqadii dabcan isqabsi dhinaciina shaqadii ay uga tageen oo ay gaartay in baarlamaanka inta cod u qaadaan iyaga dhexdooda isku khilaafaan sidaas codka loogu qaado oo la rido waxaana dadku u arkaan inaad qayb weyn ku lahayd arrintaasi marka isqabsiga ka weyn aad ka badbaadeen muxuu yahay mudan madaxweyne waxa waaye horta ra'iisul wasaarayaashu dad la soo doortay maaha oo qof la magacaabay loona igmaday xil mucayan ah loo dhiibay aniga xafiiskayga dowladnimada Soomaaliya shaqada kaliya ee xafiiskayga ka bilaabato waa magacaabista ra'iisul wasaaraha shaqooyinka kale oo dhan meel kale ka soo bilowdaan
xafiiskayga waa kusoo dhammaadaan ama maba soo gaaraanba ayagoon xafiiskayga soo gaarin ay dhammaadaan. dowladdeenna hadda maanta jirta siday u qaabaysantaha waa sidaa. shaqada keliya ee xafiiskayga ka bilaaban karto iyadoon meel kale aanay ka soo bilaaban waxay ra-iisul wasaareyaashuna waa dad sidaas loo magacaabay, waajib mucayana loo igmada. haddii waajibaadkii ay ka soo bixi waayeen ama aan u aragnay in sidii la rabay si ka gaabis, annagaa dhammaanteen wada gaabis kalena oon garanayno inuu gaabis yahay nooma noqon karo. ra-iisul wasaareyaasha waxaa lagu bedelay waxay ahaayeen shaqadii ra-iisul wasaarenimo ee loo diray ay qaban waayeen. aniga kaligeena kuma qancina, baarlamaanka ku qancay. lanna haddaanu ku qancin baarlamaanka lama bedeli kari lahayn. aniga ra-iisul wasaareyaasha shaqada kama raacdayn karo. waa magacaabi karaa laakiin shaqada kama eryi karo. baarlamaanka shaqada ka qaadi karo. baarlamaankuna haddaanu ku qancin kama qaadi lahayn. taas waa qodob. marka niman saraakiil dowladeed oo la magacaabay oo xil loo dhiibay oo xilkii haddii ay wataanna muxuu ahaay waajibaadkeeda ay joogayaan, hadday wadan waayaanna laga bedelayay ahaayeen. marka isqabqabsi dowladeed iyo dowladda dhexdeeda aniga marna uma arkin. shakhsiyaad xilkii loo dhiibay gudan waaye oo laga wareejiyey meesha oo qof kaloo gudan kara la raadiyey. waxaa soo haray baarlamaanka. baarlamaan sidiisaba dhaqankiisa wuxuu u samaysan yahay waa meel shacabka soomaaliyeed lagu maalo. 275 xildhibaanaa joogto. 275 xildhibaan inay maalin walba isku ra'yi noqdaan oy qadiyad kastoo jirtahay isku hal meel ka wada arkaan macquul maaha. waa ku kala duwanaanayaan. ra-iisul wasaareyaasha bedelkooda keliya kuma kala duwaneen. xukuumadaha dhismahooday ku kala duwanaaneen. mashruucdii faraha badnaa ay sameeyeen yay ku kala duwanaadeen. qaaraa weli ku kala duwanaanshahooda awgood bendin u ahoo u dhimanoo meel u yaallo socon waaye. marka baarlamaan inuu kala duwanaado iyo inuu isqabqabsado iyo inuu marmarka qaarkood isku buuqo nolosha baarlamaannimaday ka mid tahay. inkastoo shirkii ugu dambeeyey ee lagu qabta baydhabo ee madasha dabcan aad jaangoyseen oo qorshayseen sida lagu dhaafayo waqtiga oo dhiman oo doorasho loo gaarayo, haddana markaad eegto waddanka saansaan doorasho ma muuqato. dadkuna way isweydiinayaan su-aalaha noocaasa. walwal intee leeg ayuu kugu hayaa in xilligii loogu talagalay aanay doorasho dhicin oo waddankii gaab siyaasadeed usoo galo? horta waxaan u malaynayaa ajandaha higsiga 2016 ee soo bilowday 2013 saddexdii sano oo dhan laga soo shaqaynayay. maantana weliba asigoo aan dhammaystirnayn haddana in lasii socdo oo wax lagu qabto lagu ballamay. doorashada dalka ka dhacaysa ay tahay doorashadaas hadda aan sheeg meel fiican uu soo gaaray. mowqifka maalintii koowaad ilaa maanta aan leenahayna waxba iskama bedelin. dowladdani teramay leedahay, xilli ay leedahay. xilligeeda hadduu dhammaado shaqadeeda sharciyadeeda waa dhammaatay. sharciyad kale oon dalka kusii hogaamino ma haysano. marka sharciyadda intaanay dhammaanin inaan dowlad kale oo cusub oo sharciyad hor la haysata inay timaado waxay naga ahayd mabda aan ku shaqaynayna ahayd. welina isigaan taagana. wixii farsamo ah oo dhan waa soo qaban. howlihii hadda howlo farsamay kusoo urureen. waxay kusoo urureen wixii dhaqangelintii wixii amniga goobahaasee loo sugaa, muxuu ahay tiradiisee loo xaqiijiyaa, xulitaankii dadkii sidii saxda guddiyo farsamaana loo sameeyey oo shaqadii qaatay. inta badan shaqadii ay madasha ay lahayd waa soo dhammaatay. hadda korjoogtayn iyo inaan un wixii sidii ma u socdaan lagu ballamay iyo inaan ilaalino wax aanan lagu talagelin oon hore looga sii hadlin hadday soo baxaanna aan ka tala bixino go-aan ka qaadano un waaye. shaqada madashee kulanka hadda soo socdaay hadduu dhammaado shaqada madashu inta badan way dhammaatay. wax aan la filaynin oon lagu talagelin hadday soo baxaan mooye. marka hawshii sidaas ahayd oo wadatashigai qaran oo dalkao dhan 6 bilood ka socday soo martay oo intaasoo kulan oo madashaa soo martay oo baarlamaanka meel walba soo martay maanta meeshay joogta. marka weli annagu waktigii dowladdan xilligeeda dhacayay iyo waktigii baarlamaanka cusub inuu yimaado ay ahayd waa noo sidoodii, waxba iskama bedelin. dee berri waa maalin cusub wixii imaan doona ma naqaano, laakiin maanta aan kula hadlayahay wax walba xilligii loogu talagalay ayay annaga naga taallaa. xilli kale ma qabno. dabcan meelaha laga rajeynayo qarashaadka lagu wadi lahaa doorashadaas iyo howlahaasi oo dhan beesha caalamka ayaa ka mid ah. haddii aanay dhicin in laga helo lacagtii laga filayo oo howlahan lagu qaban lahaa, dowladdaadu shaqadaasi ma qaban kartaa ma ku filanta? wallaahi annagu waxaan qabnaa hawshan hawl Soomaaliyeed waaye.
dadka soomaalida iyo dowladooda ayaa iska leh caalamkuna doorkiisa waa kab kaalmo waay haddii anagu ma rajaynayno mana qabno in kaalmada caalamka u ballan qaaday laga wayn doono laakiin iyadoo kaalmadaas la helaya xataa 100% anaga kaalmadaas kuma tiirsanayn ee dowladda Soomaaliyeed dooray leedahay ay ayadoo la sideed ay qaadanayso door dhaqaale leh door adeeg kale leh haddii wixii kaalmaan helinayaan aan weynana dadka Soomaaliyeed un baa mar walba laga rabaa doorashadan inay dhacdaa marka dowladda iyo shacabku iskaashanayo waxaan aaminsanahay inay doorashada ay dhaqan geli karaan laakiin ma aaminsanin in kaalmada caalamiga la weyndo waa laga yaabaa intii la rabay in ka yar in la helo laakiin waa la weynayaa ma qabo waa gartay inta aadan madaxweyne ka noqon wadankan adiga saaxiibo kale oo doorashadii soo galay oo ka haray golo ayaad leedeen oo aad markaa hadba xaaladii wadankaas jirtay markaas aad kaga hadli jirteen waxaana ku dhaliili jirteen dowladdii markaasi jirtay Sheekh Shariif oo hogaaminayay in iyaga ay hawshii iyo hanaankii doorashada gacanta ku hayso oo waliba hadaladiina ka mid ahaa madaxweynuhu isaga ciyaartooy ah karsooriyana uu yahay haddana waxaad moodaa madashii inaad gacanta ku haysaan howlihii siyaasadda iyo doorashadii wadanka marka laga tago shaqooyinkan hoose hadda aad sheegtay laakiin waa madashii adinka odayaal oo banaanka u fadhiya dadkuna aad bay og yihiin inay yar tahay howlan adinku raali ka ahayn inay dhacdo soo ma haboonayn ficilkii shalay aad dhalishay maanta inaad ka fogaataan laba waxyaabood wax badanaa wixii shalay maanta ku kala duwan yihiin dowlad goboleedyo talada iyo doorashooyinka ay ka dhici doonaan ma jirin iskoola bulutsi iyo xamar iyo shalay taladu ay joogto dhammaan maanta dad kaloo fara badan horta talada iska leh guddiga dowlad goboleedka iyo dowladda federaalka ka dhaxeeya ee goobta doorashada tegi doona ka shaqayn doonaa horta madasha ma aha madaxweyne xasan sheekhna ma aha waxaan anagu samay dowladda nidaamkii hore transitionka ugu dhamaanay waad xasuusataa xukuumadda ayaa wax walba gacanta ku haysay wasiiraa gacanta ku hayay annaga waxaana la yidhi wasiirada gacanta kuma hayn karaan markaasaa wasiiradii dowladda federaalka ah iyo wasiiradii dowlad goboleedyada yaa laga dhaafay oo waxaa meeshii lagu soo waday dad bulshada rayidka ka tirsan iyo dad ka tirsan xukuumadda qaybaheeda hoose oo farsamo yaqaano ah haddee madashii hadday meesha ka baxdo waajibaadka dowladdan ay ka mid ahayd dalka inay doorashooyinka dhaqan geliso marka waxay ahayd dowladdu inay gacanta ku hayso oo haddii ay gacanta ku hayn dowladdu inay gacanta ku hayso iyadoo adeegsanaysa hay-adaha muxuu sharciga loo marsiiyey sida guddiga madaxa bannaanaay ee doorashooyinka duruufaha dalkeena ka jiraahay waxay sababi waayeen in guddiga uu shaqeeyo asbaab badanoo hadda laga gaari waayey ayaa timiday kadibna waxaa lagu ballamay horta waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed u sheego wixii meel mara waa wax la isla wado wixii la iskala jiidanayo oo la kala waxaynayo meel ma mari karaan madashu marka waxay geed fadhi u ahayday in ay waxaan Soomaaliya dhan ka dhaqan galaan dowladda federaalka ah kaligeed go'aan ma gaarin doorashooyinka waxay ka dhacayaan Kismaayo Baydhabo Cadaado Garoowe meeshii kale oo muxuu Shabeelle iyo Hiiraan ka soo baxda Muqdisho intii oo dhan dadkii marka doorashada dhaqan geli lahaa oo taladeeda wax ku lahaa oo ammaankeeda wax ka sugayay oo dhaqaale ku bixinayay oo haddii dhibaato jirto ku soo baxayo meesha joogay waa maamulada iyo dowladda federaalka isku tagay marka dee dowladdu hoggaan ayay ka tahay meesha laakiin wixii farsamo ah iyo wixii shaqo qabasho ah oo dhan dad aan siyaasiyiin ahayn oo farsamo yaqaano ah oo dowladda qaarkood aanay ku jirin ayaa gacanta ku haya marka waxaan qabaa dowladdu iyo siyaasiyiintu intii laga fogeyn karay nidaamka doorashada waa laga fogeeyaan qabaa in badan oo dadka Soomaaliyeed ah waxay aaminsan yihiin in haykalkii iyo taladii dowladnimo ee wadanka uu gacanta u galay koox ay yiraahdaan waliba koox diimeed oo damo jadid la yiraahdo oo lagu tiray waliba inaad ka tirsanta odayaashiida tahay arrimaha noocaas ah dhaawac intee leeg ayay u geysteen dowladdan adigu aad madaxweyne ka tahay adigu aad aaminsan tahay iyo mustaqbalkaaga siyaasadeed ee aad rabto mar kale inaad madaxweyne ku noqoto aniga horta koox dam jadiid la yiraahdo aniga aan ka tirsanahay ma jirto institution dam jadiid la yiraahdo meel taagan oo aqaanaayna ma jiro waxa kale marka waxaan meeshii ku tiirsan yahay rabaa inaan kuu sheego
haddaad xasuusatid dowladnimo markii ugu horreysoo la soo celiyey 2000 madaxweyne cabdiqaasim salaad xasan oo madaxweyne ka noqday waad og tahay wixii lagu eedeyn jiray ama lagu dacaadeyn jiray reeraa lagu dacaadeyn jiray gacanta ugu jiraa dowladnimada reerkaasaa qaatay waa in laga dhigaa ha la dhihi jiray beenay ahayd waxba kama jirin mas madaxa dadka dowladnimada soomaaliya la dirirsan ee la dirirayo laba kooxoodaa jirto kuwana dowladnimaday si ula kaca ula dirirsan yihiin kuwana cabsi ay dowladnimada ka qabaan awgeed ayay ula dirirsan yihiin mas madaxaa laga dilaa marka meesha dowladnimada ugu sarreysa mar walba in la weeraro madaxweyne cabdiqaasim salaad xasan waxaa lagu eedeyn jiray reero madaxweyne cabdulaahi yuusuf waad xasuustaa niman dhallinyaraha oo diaspora u badanoo aranjan loo bixiyo magacyo kale loo bixiyo lagu eedeyn jiray madaxweyne sheekh shariif waxaa la jiray aala sheikhaa joogo oo dalkii qabsaday xasan sheekh damjidiidaa joogo berri haddii jaamac yimaadna jaamacna balaayo kalaa joogto dhaqan soo jireen oo samaysmay waana wax dowladnimada lagula dirirayo dowladnimada soomaaliya lagula dirirayo aniga dad soomaaliyeed oo isku siyaasadda ila fahamsan isla wadno igala shaqeeyo xukuumadda ku jira bulshada rayidkaa ka tirsan qaybaha kala duwan ee bulshada o dhan ka tirsan waa jiraan laakiin koox gaara oo ajanda ayadu ay gaar haddii koox gaara ay leedahay intaan 200 300 oo qof oo soomaaliya isugu yeerno oon dhex dhigna ajandahan ka tashada maynaan dhihi lahayn haddii koox gaara ay leedahay madaxweynayaasha dowlad goboleedyadoo dhan intaan platform oo aan wax igu khasbaya aniga inaan sameeyo aanay jirin intaan u sameeyoon isugu yeeroon marti qaadon isku keeno taladii soomaaliya waa tan halkan intaa la ka tashada ma dhihi lahayn marka dadkaasoo dhan hadday wada dam jadiid yihiin ma ogi boqolaalka soomaalida ee shirarkii iyo hiigsiyada iyo soo sameeyey iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo xukuumadahooda iyo baarlamaanadooda hadday yihiin dam jadiidka la tilmaamayo ma ogi laakiin koox gaar ahoo talada dalkan waana waxa anigu aan u taaganahay inaan ku faanana aan rabo inaan ka dhowray shaksi iyo shaksiyaad gaar ah talada dalka inay gacanta u gasho dadka soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed matala heer bulsho iyo heer siyaasadeed inay talada gacantooda gasho oo ay ka arinsadaan waxyaabahan ku faanaya ka mid tahay go-aankii kugu adkay aad qaadatay muxuu ahaa intaad hilkanaysa go-aano badan oo aad iyo aad u kharaara oo aad u dhib badanaa soo maray waxyaaba aad u jeedidood adigu aad fahamsan tahay laakiin ma marka qaarkood dadkaagu aanay kula fahamsanayn inaad go-aan ka qaadataa way dhib badan tahay leanna dadkaygu dad xun ma aha laakiin duruufihii ay soo mareen iyo waayihii ay soo mareen ayaa maskaxdooda qaab u yeelay marka go-aano badan oo aad adagoon qaadan lahayn oon ka tanasulna way jiraan si aan mar walba u ilaalino wadajirka iyo isla socoshada dadka oo aan lagu kala yaacin meesha markii ugu horreysoon dalka taladiisa qabanay go-aankii 10 wasaaradood oo aan samaynay go-aan adagoo ahaa go-aan aad iyo aad u adag kii ugu adkaay ma dhahay go-aan adagoo ahaa go-aan saxa inuu ahayna ilaa maanta waan aaminsanahay laakiin fahamka dadkayga ayaa nala gaari waayey go-aanada way badnaayeen dagaalada laakiin go-aan kaloo hadda ugu dambeeyey wuxuu ahay kii aan wareegtadii aan ku ansixiyey barnaamijkii madasha oo ahaa haddii aanan sidaa yeeli lahayn maanta meesha aan joognana ma yeeli lahayn go-aan aad u dhib badan oo ahaa dad badan oo saaxiibbaa ahay aanay jeclaysan dad badan oo siyaasiyiin ah oo dalka jooga aanay jeclaysan hay-ado badan oo caalami ah iyo dowlado saaxiibaana qaarkood aanay jeclaysan waxaa isbarbar istaagay in aan ka baqo madaxweynuhu waa dictator oo dictator wax ku samaynaya in la yiraahdo oo aan ka joogo iyo in aan qaato go-aanko si ay siyaasaddii hore ugu socoto oo ay taladii hore ugu socoto marka kii ugu dambeeyey hadda ugu dambeey ugu adkaayo habeeno badan ugu qaata kaas ah marka labadaas go-aan aad leedahay waxay ahayn kuwii ugu waaweyn inkastoo ku kala jireen waay waxaa tahay musharax hadda u taagan xilka madaxtinimada ee dalka ma qiimeyn kartaa mustaqbalka siyaasadda ee doorashada 2016 maxaad ka rajeynaysaa 2016 doorashada waxaan aad iyo aad u rajeynayaa horta si nabada inay ku dhacay doonto isqabqabsigeedu inuu yaraan doono inuu ka soo bixi doono dad Soomaaliyeed oo baarlamaan ah baarlamaankaasoo ka yimiday degaano
dadka soo dooranaya ay degan yihiin ama ay isugu tageen oo ay dadka lasoo dooranayaahi ay dhadhan gaara ay xambaarsan yihiin oo ah in lasoo doortay waa beeshii aan dhahnay weli beeshi kama guurin laakiin beeshii markii qof soo magacaabayo qofka iyo markii dhowr qofoodoo beesha ka tirsan lafteeda ay soo kala dooranayaan dhowr qofood hal qof maaha dhowr qofood la kala dooranayo waxaan fursad siinay beesha lafsadeeda fursad aanay shalay heli jirin ayaa maanta aan siinay marka waxaan qabaa baarlamaanka imaan doono baarlamaan mas-uuliyad culus xambaarsan oo fahmayo culayska iyo meesha ay ka yimaadeen iyo cidda ay